السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن الداود يلسود وهذا ومركز ولكن هذا كرامة halka adiga daawanaysan dabcan bartan YouTube-ka ku leeyahay aadan karaama haddii ay tahay markii ugu horeysay aadna soo booqato fadlan subscribe tan ugu sharaf isla markaana riix kambalka cas si ay ku soo gaadhaan dhacdooyinka iyo muuqaalada xiisaha leh ee kala duwan aan ku soo gudbino haddii aad horey noola joogtayna aad kun iyo kow jeer ayaad mahadsantahay madaxaad inoo saaran tahay waxaan kaa codsanaynaa markaas inaad muuqaalka like sii saarto si uu sii baaho oo uu sii gaadho markaasi bulsho badan xogaa telefoonadiiyo jaamgarowdo waxaa la baafiyeen gabadheeda xanuunsan tahay markaa xukumi jiraan dadka facebookyada leh farxiyaha xanuunsan malihin anagu bijidka gabadheeduna waa caafimaad qabtaa waa islaama dhammaan Soomaali meel kasta aad joogtiin horna waa u aragteen asoo aniga isakay dhigay dhahay ninkeyga isbitaal ku jira loo soo duceeyo marka Soomaaliya ay aqli leedihiin oo maskax leedihiin waa dareem kartiin waan fahmi kartiin ma fahamto qof walba maalin ay dhimanaysaa qof walba maalin nafta laga qaadaya aniga hore la soo dhahay way dhimatay marka inay ku qaraabanayaan dadkaas waa iska fahmi kartiin qof walba maalin uu leeyahay uu dhimanaya iyagana waxaan leenahay waxba si walba u hadashaan si walba tiraadaan xanuunsantihiin iyo si walba wax sheegtaan kaliya soo dubna idinku filan waxay ka faafiyeen warbeena waxay ka sheegeen isla markaana ay yiraahdeen way xanuunsan tahay farxiifiska waxay sheegeen in xanuun haya hadda uu u keenay saygeeda warkaasi dad baa u qaata mid runa isla markaana waxa baahiyeen warkaasi shakhsiyaad doonayay in sumcadooda ay dhaawacaan lamaanayaasha farxiifiska iyo sidoo kale Mubarak October laakiin se markii ugu horeysay arrintan lamaanahan waa ay ka hadleen waxaana ay beeniyeen wararka lagu baahiyay baraha bulshada ee la xiriira inay xanuunsan tahay fanaanada farxiifiska waxay tilmaameen in arrintaas ay tahay mid been abuura waxay sheegeen in qalad weyn laga galay isla markaana iyagu caafimaad qaba lagu tilmaamay dad xanuunsan isla markaana cudurro ay ku dhaceen waxa saacadihii la soo dhaafay baraha bulshada ku faafaya muuqaal been abuura oo laga sameeyay lamaanahan farxiifiska iyo sidoo kale Mubarak October waxay ku tilmaameen shakhsiyaad xanuunsan waxay sheegeen in farxiifisku uu haleelay cudur halisa cudurkaas uu kaga yimid saygeeda waa sida ay sheegeen kuwii fiyuuska ku raadinaya lamaanahan oo caafimaadkooda taam uu yahay Mubarak ayaa yiri xaaskeyga way caafimaad qabtaa alxamdulillah kuwa badan ayaa waxay ka naxiyeen qaraabadeena iyo ehelkeena waxa soo dhacaya oo biisi badan noqday teleefanadeena dadka qaar waxay leeyihiin sidee wax u jiraan maxaa dhacay laakiin se waxaan u cadeynaynaa in wararkaasi ay yihiin kuwa been abuura magacyadeena ayay ka sameysteen bara Facebook iyo sidoo kale YouTube waxaanay ku sheegeen inaan nahay dad caafimaadkooda taamuusan ahayn laakiin se waxaan cadeynaynaa inaan caafimaad qabno sidaas waxaa yiri Mubarak October oo markii ugu horeysay ka hadlayay wicitaanada badan ee dadka qaraabada ehelka iyo saaxiibada ay ku soo sameynayaan teleefanadooda kuwaas oo tilmaamaya maxaa ka jira arrinta la idinka sheegayo laakiin lamaanayaashan sida isku guursadeen dad badan ayaa daba dhigtay isla markaana bilaabin warar been abuur ay ka faafiyaan waxay diidayaan nolosha iyo sidoo kale farxadda dhaxtaala labadooda waxay dhibsanayaan isla markaana xanuun ay u arkaanba wehelka iyo sidoo kale wadajirka iyo qanacsanaanta labadooda ay isku muujinayaan aan u deeno noloshooda farxadda iyo wehelka ku dheehan iyaga ayaa isku doortay isla markaana isku jeclaaday sidan ma ahan maalin waliba in laga faafiyo warar aan jirin xaqiiqdii aad ayaan kaga naxay marka dad badan ay soo waceen sidaas waxaa yiri Mubarak October waa sayga fanaanada weyn farxiifiska walaalkan aadan karaama haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato fadlan subscribe inoo saar isla markaana riix kambalka cas ay ku soo galaan muuqaalada iyo dhacdooyinka kala duwan ee xiisaha leh halkan ku soo gudbino haddii aad horey noola joogtayna dabcan aad ayaad u mahadsan tahay kun iyo kow jeer madaxaad inoo saaran tahay fadlan like si qabo muuqaalka si uu u baaho oo bulsho badan u gaadho tan iyo muuqaalka mid lamid ah intaan ku kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu